waa dhawahay cismaan xaaladda degmada Gurceel hadda waa mid degan shalay iyo maanta waxaa ka dhacay iska hor imaadyo magaaladan looga xoreynayay niman qaswadayaal ah oo kusoo duulay degmadan Gurceel kuna talagalay inay dadka magaaladan barakiciyaan runtiina dhib badan u geystay falilah alxamdu waxaa noo suura gashay in magaaladii la xoreeyo qayb yar oo kamid ah magaalada banaankeeda ah ayay hadda ku go'doonsan yihiin halkaas ayayna ciidamadu howlgalkii weli ka wadaan waxaana rajaynaynaa ilaahay idinkiis inay gacanta soo geli doonaan dhowr mar ilaa 20 iyo dhowr beri ayaan ku jirnay in xal la raadiyo in nimankaasi ay ka shaqeeyaan in xabad waxaan ahayn muxuu ahay arrintan lagu wajaho laakiin caqabad ka timid nimankan aan ayaga ahi xabadda ka wada Gurceel waxaa suura geli weysay in xal la raadiyo sida awgeed waa laga maarmi waayey in xabad la galo ilaahayna waana guuleeyey ayagana ilaahay waa jebiyey hadda qof xaqdarro wadana ma guuleysanayo magaalada iyo jawiga degmada iyo dhammaan deegaanaduna inta kale waa degan tahay meeshaas aan kuu sheegay oo ah goob dhufays ay uga jireen ayay xabada kasoo ridayaan marka halkaas ayay xaaladdu maraysaa gudoomiye xaafadaha waqooyi magaalada Gurceel oo aan ognahay inay dagaalo qaraar shalay iyo maantaba ka dhaceen hadda yaa ku sugan aniga kula hadlay ayaa hadda kala hadlaya isbitaalka Sterling oo ku yaala dhanka waqooyi waxa waaye hadda anaga ayaa ku sugan ciidanka dawladda ayaa jooga kali ah ayagu waxay joogaan meel magaalada dhinac uga baxsan ayay xabada ka soo gudayaan waxaan rajaynayaa in saacadaha soo socda ay soo aftarmi doono howlgalkan haddii ilaahay yiraahdo amniga guud ee magaalada xarumaha muhiimka iyo guud ahaan magaalada amnigeeda marka laga soo tago meesha jaamacadaha oo aad sheegtay inay dhufays uga jiraan hadda waa sidee dhammaan amniga guud magaalada hadday tahay xarun dawladeed iyo hadday tahay meelaha caadiga ah waxaa ku sugan ciidanka dawladda waxa qalalasaa kama jiraan xaaladeeduna way degan tahay kali ah meeshaasaan kuu sheegay inta aan ahayn magaalada Gurceel iyo deegaanaduba inta waa habboon yihiin wax caqabada iyo wax colaadana kama jiraan waxaa ognahay maantay barqadii inay soo baxeen warar sheegaya inay dalbadeen wadaadada ku sugan meesha hadda aad sheegtay inay magaalada ka baxaan maxay iska bedelay arrintaas walaal arrintaas way jirtay laakiin ma suura gelin markii loo kaadiyey xabadii la joojiyey oo laga shaqeeyey inay magaalada ka baxaan ayay haddana waxay bilaabeen inay xabad soo bilaabaan ay xabada soo ridaan marka bacdama ay ayagii xabad bilaabeen oo ay dee waxaan u arkaynay inay tahay propagandadii iyo beentii ay hore u sheegi jireen marka wax ka jira ma lahan haddii ay hadda diyaar u yihiin inay baxaan ama ay qorshe kale la keenaanna waxaa diyaar loo yahay in xabadda laga joojiyo ciidanku mar walba xabadda ayagu uma socdaan laakiin waa wax lagu qasbayo waxa weerarka oo xabadda ridaayana waa iyaga marka bacdama ciidamadii ayaga ay soo weerarayaan ciidanku wuxuu ku qasban yahay inuu difaaco dalka iyo deegaankaba marka hawshu walaalow halkaas ayay maraysaa nimankaana wixii ahaay xabadahana laka joojiyo ma aysan suura gelin ayaga xaggooda ayayna ka suura geli weyso mudana gudoomiye dagaalka intii uu socday maxaad guula oo ka gaarteen dagaalkaas haddii ay tahay dad lagu qabtay iyo hub lagu furtay walaalow arrintaas horta dib ayaan si fiican uga faahfaahi doonaa laakiin si hordhaca haddaan kuugu sii sheego dhammaan dhaawacyadoodii iyo beedadkii ay ka tageenba magaalada ayay dhooran yihiin runtii kuma faraxsanin in dad dhinto Soomaaliyeed in qof ay xagati naga gaarto waa walaalaheen laakiin waa dhalinyaro la qalday oo wax aan jirin loo sheegay oo lagu qanciyey in deegaankoodii ay weeraraan hooyooyinkood barakiciyaan dadkoodii ay xabad ka dhex ridaan marka khasaaruhu waa badan yahay xaggooda soo gaaray laakiin ma raba inaan xilligaan aan faahfaahin kasii bixiyo keliya waxaan rabaa inaan ku xaqiijiyo magaalada xaaladeedu inay degan tahay haddana ay xabaddu keliya ay ka jirta ay tahay jaamacadda oo dhanka waqooyi ka xigta magaalada aanan u dheerayn dad badan ayaa magaalada ka barakacay waxayna u dheg taagayaan xaaladda kasoo kororta Gurceel maxaad fariin oo ugu dambeyn u diraysaa dadkaas runtii dadka barakacay aadaan uga xunnahay waa sax magaalada waa laga barakacay dadkeedii banaanka ayay ku dhibaataysan yihiin hooyooyinkii aabayaasheen iyo dhammaan
aadaan uga xunnahay qorshaheenu wuxuu yahay markii howlgalkaanu soo afjarmo inaan culayska saarno sidii lagu soo daabuli lahay qof walbana hoygeedii sidii looga shaqey lahay dawladda ay gacan uga geysan lahayd in dadkii dib loo soo celiyo in la caawiyo haddana waxaan ugu sii baaqaynaa hay-adaha iyo cid walboo gacan ka geysan karta inay caawiyaan dadka barakacay la dhibaateeyey oo geedaha hoostooda ku barakacay xarun ganacsi oo furan aysan jirin meel ay wax ka helaan aysan jirin waxaan codsanaynaa in la caawiyo cid walba oo ka shaqayn karta annagana qorshaheena waxa weeyaan haddii ilaahay yidhaahdo saacadaha soo socda inaan dadkaas habkii lagu caawin lahay aan ka shaqeyno waan ku guda jirnaa hadda laakiin bulshada waxaan leenahay reer Gurceel ha isdejiyaan culayska soo wajahay waa ka dulqaadaynaa haddii ilaahay yidhaahdo waxayna gaari doonaan insha allahu tacaala xilli ay sidii ay ahaan jirtay iyo nabadii ay ahaan jirtay Gurceel ay dib ugu soo noqdaan guryahoodana ay nabad ugu joogaan magaalada dagaalo culus maadaama ay ka dhaceen ilaa hadda wax khasaaro oo gaaray oo noo sheegi karta ma jiraan walaalow khasaaro waa jiraa magaalada soo gaaray laakiin hadda saa horaba kuugu sheegay ma rabo inaan hadda faahfaahino bacdamaa weli ay hawlihii taagan yihiin xilliga ay soo dhammaato oo howlgalkaanu soo gabagabooba ayaa wixii warbixin ah ayaan ka hadli doonaa haddii ilaaha yidhaahdo